annagu la faqaadi mayna kii aad dishay oo dhab oo kafantii ku jira iyaanu diyaaradda saarana adna maxkamad kula saarana waxaan salaamayaa ilaacadda daljir iyo shaqaalaheeda sida habsamida leh waxaan ay nolol shaqaysay waxaan uga gudbayaa 3 qodob oo yar yar qodobka hore waxa weeye waxaan la hadlayaa Muuse Biixi oo been baad sheegtay dadka aad qarisayna waad ku tala gashay inaad qariso laakiin dad bay ka maqan yihiin waxaad soo ogaataa tuka cabdihayaan adaa lafaha daba qaaday diyaaradana saaray in adeerkaana u dhiibay adaana haysta annagu la faqaadi mayna kii aad dishay oo dhab oo kafantii ku jira iyaanu diyaaradda saarana adna maxkamad kula saarana isagii oo nool isagii oo meeyda oo maanta aad dishay yaa maxkamadda lagula saarayaa lafihii dadkii hore lagu soo saari maayo taa la soco talabaad waxa weeye Muuse intaasaan kaga tagayaa waxaan Muuse u raacinayaa aniga caaqilkayga aad dilay mutacallinkayga adiga dilay chief caaqilkayga xariir maxamuud xoosh aduu kugu maqan yahay mutacallimiintayda aday kugu maqan tahay maxamed aflahaar baa ugu dambeeyay laakiin dadkan ilaahay baa ugu tala galay oo qof qiimo laga waayay maayo waa rabbaaniye waa dadkii ilaahay uu ku ilaalinayay diintiisa iyo dalkiisa horay uga dhashaan wana ka dhalanayaan intaasaan kaaga tagayaa bulshada waxaan leeyahay dhulbaante aniga iyo korneelka cabdirisaaq labadayadan korneel 4 sanadood dagaalka waa ka jiifnay halgankii hore yaanu dayac ku gaadhnay inkastoo halganka loo dayacmo waa nala qaadan waayay annana 4 sanadood dib baanu u dhignay wixii aanu yeelna cidna ka qarin mayna maanta dagaalka lambar 1 baanu ka nahay naftayadaana ugu horeysa wax gelaysa waana ku guuleysanana taa sidaan ugu ogaaday intii aanu ka fadhinay waa u kacanaa bulshada waxaan leeyahay haddaan la dhiman oo maatada aan la layn oo dhalinyarada aan la layn oo aan la ololin ma gaadhasaan hadafkaad leedihiin mana helasaan ku kalsoonaada wixii ina gaadha qaata qoriga kaca dagaalama ololiya guba ka kaca fadhiga hanasanina ha aajisina innagaa isku filan sidaa korneelku yidhi korneel cabdirisaaq hana sugeen ciddii noo hiilinaysaa annagaa ka adag kuna filan waana isyaqaanaayo dadka haddeer lama abuurin dadku weligiiba waa jiray weligeedna waa la isdili jiray cidina dagaal iyo xabad annaga noogama adka daraawiish baanu u nahay dhulbahantaanu u nahay daarood baanu u nahay harti baanu u nahay waa ku filannahay kuwa ku jira anigu odhan maayo SLM laascanood ka taga laascanood xabad bay kaga tagayaan laakiin kuwa ku jira waxaan leeyahay aqoon xuma ayna haysee iskaga soo baxa maalin ayaan waji leynahayn intaad ka soo bixi lahaydeen maanta waan rabnaa ka soo baxa garabka yagaysa soo taaga dadkiina xabadda ka daaya dalkiina gubista ka daaya cadawga ha u soo raacina adduunyada waxa weeye haddii aad sidaa ku dhimataana taariikhba qormaysa haddii aad noolaataan oo dalku waanu xoreynanaa uu xoroobana magac iyo maskab ku yeelan maysaan waxaad noqonaysaan dad ducuf intaydin ducuf noqon waxii hore haba iska dhaceene ilmaada real iskaga soo baxa waanu in rabnaa haddii aydin idinku naga maarmin waxaan hadalkii kaga tagayaa iskaga soo baxa dadkiina xabad dambe ha u celinina cadow dambana ha u raacina assalaamu calaykum annagu la faqaadi mayna kii aad dishay oo dhab oo kafantii ku jira iyaanu diyaaradda saarana adna maxkamad kula saarana waxaan salaamayaa ilaacadda daljir iyo shaqaalaheeda sida habsamida leh waxaan ay nolol shaqaysay waxaan uga gudbayaa 3 qodob oo yar yar qodobka hore waxa weeye
waxaan la hadlayaa Muuse Biixi oo been baad sheegtay dadka aad qarisayna waad ku tala gashay inaad qariso laakiin dad bay ka maqan yihiin waxaad soo ogaataa tuka cabdi hayaan adaa lafaha daba qaaday diyaaradana saaray in adeerkaana u dhiibay adaana haysta annagu la faqaadi mayna kii aad dishay oo dhab oo kafantii ku jira iyaanu diyaaradda saarana adna maxkamad kula saarana isagii oo nool isagii oo meeyda oo maanta aad dishay yaa maxkamadda lagula saarayaa lafihii dadkii hore lagu soo saari maayo taa la soco talabaad waxa weeye Muuse intaasaan kaga tagayaa waxaan Muuse u raacinayaa aniga caaqilkayga aad dilay mutacallinkayga adiga dilay chief caaqilkayga Xariir Maxamuud Xoosh aduu kugu maqan yahay mutacallimiintayda aday kugu maqan tahay maxamed aflahaar baa ugu dambeeyay laakiin dadkan ilaahay baa ugu tala galay oo qof qiimo laga waayay maayo waa rabbaaniye waa dadkii ilaahay uu ku ilaalinayay diintiisa iyo dalkiisa horay uga dhashaan wana ka dhalanayaan intaasaan kaaga tagayaa bulshada waxaan leeyahay dhulbaante aniga iyo korneelka Cabdirisaaq labadayadan korneel 4 sanadood dagaalka waa ka jiifnay halgankii hore yaanu dayac ku gaadhnay inkastoo halganka loo dayacmo waana la qaadan waayay annana 4 sanadood dib baanu u dhignay wixii aanu yeelna cidna ka qarin mayna maanta dagaalka lambar 1 baanu ka nahay naftayadana ugu horeysa wax gelaysa waana ku guuleysanana taa sidaan ugu ogaaday intii aanu ka fadhinay waa u kacana bulshada waxaan leeyahay haddaan la dhiman oo maatada aan la layn oo dhalinyarada aan la layn oo aan la ololin ma gaarasaan hadafkaad leedihiin mana helasaan ku kalsoonaada wixii ina gaadha qaata qoriga kaca dagaalama ololiya guba ka kaca fadhiga hanasanina ha aajisina innaga isku filan sida korneelku yiri korneel Cabdirisaaq hana sugan cidii noo heelinaysa annaga ka adag kuna filan waana isqaanayo dadka hadeer lama abuurin dadku waligiiba waa jiray waligeedna waa la istiri jiray idina dagaal iyo xabad annaga noogama adka daraawiish baanu u nahay dhulbahantaanu u nahay daarood baanu u nahay harti baanu u nahay waa ku filannahay kuwa ku jira anigu oran maayo SLM lascanood ka taga lascanood xabad bay kaga tagayeen laakiin kuwa ku jira waxaan leeyahay aqoon xumayna hayse iskaga soo baxa maalin ayaan waji leynahay intaad ka soo bixi lahaydeen maanta waan rabnaa ka soo baxa garabkayagaysa soo taaga dadkiina xabada ka daaya dalkiina gubista ka daaya cadawga ha u soo raacina adduunyada waxa weeye haddii aad sidaa ku dhimataan taariikhba qormaysa haddii aad noolaataan oo dalku waanu xoreynanaa oo xoroobana magac iyo maskab ku yeelan maysaan waxaad noqonaysaan dad ducuf inteedin ducuf noqon waxii hore haba iska dhaceene ilmaada real iskaga soo baxa waanu in rabnaa haddii aydan idinku naga maarmin waxaan hadalkii kaga tagayaa iskaga soo baxa dadkiina xabad dambe ha u celinina cadow dambana ha u raacina assalaamu calaykum